assalaamu calaykum mar kale waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale iyo barnaamijkeenii fikraddii faallo fikradda ama aragtida maanta aan idiin hayo waa aragti ka sheekeynaysa qofka bay'adda uu ku dhex jiro iyo sida kobiciisa iyo koritaankiisa ay uga qayb qaadato aragtidan magaceeda waxaa la yidhaahdaa ecological systems theory waa aragti jaamacadaha adduunka lagu daraaseeyo waa aragti dalal badan oo dunida ka mid ah ay ku dhaqmaan aragtidan haddii aad macallin tahay haddii aad waalid tahay haddii aad barbaariye tahay haddii aad madax tahay ama maamule ama mas-uul aad ayay ku anfacaysaa waxaad baran doontaa bay'adda dadkaaga ay ku dhex jiraan iyo sida ay u kobcaan iyo isbeddelka iyaga ku yimaada iyo nolosha sida ay u saamayso aragtidan waxay leedahay 5 qaybood ama 5 area walba ama qayb walba waa dul istaagaynaa waa sharxaynaa waa falanqaynaynaa tusaalooyin iyo tusmooyin ayaana ka bixinaynaa qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa microsystem waxaa soo hoosgalaya familka waxaa soo hoosgalaya saaxiibada waxaa soo hoosgalaya iskuulka waxaa soo hoosgalaya dugsiga waxaa soo hoosgalaya masaajidka dadka qofka u agdhow oo dhan oo markaa ku hareeraysan oo markaas waxaa weeye qofka kobiciisa iyo koritaankiisa ka qayb qaadanaya qofka isaga bedelaya qofka isaga saameynaya ayaa waxaa la yidhaahdaa microsystem bay'addaas iyada ah qofka nafsadiisa ayay la falgelaysaa ama si dadban ama si toosan ayay qofka u saameynaysaa ama si togan ama si taban ayay qofka u saameynaysaa marka bay'addaas waxaa la yidhaahdaa microsystem qofka markaas waxaa weeye waxaa loo baahay inuu ka warhayo waalidka waxaa loo baahay inay ka warhayaan macallimiinta waxaa loo baahay inay ka warhayaan intaasoo koox oo aan soo sheegnay ama intaasoo qof oo aan soo sheegnay qofka way bedelaan wayna saameeyaan kobiciisa iyo koritaankiisana way ka qayb qaataan qaybta labaad magaceeda waxaa la yidhaahdaa mesosystem waxaa laga wadaa waxaa weeye intii kooxood ama intii qof oo hadda aan soo sheegnay xiriirka ka dhexeeya tusaale xiriirka ka dhexeeya familka iyo iskuulka qofka aad ay u saamaysaa xiriirka ka dhexeeya masaajidka iyo familka qofka way saamaysaa wayna bedeshaa xiriirka ka dhexeeya iskuulka iyo saaxiibada qofka way bedeshaa way saamaysaa kobiciisa iyo koritaankiisana way ka qayb qaadataa waa bay'ad kale marka waxaana loo baahan yahay qofka waalidka ah qofka macallinka ah qofka barbaariyaha ah in uu ka warhayo bay'addaas iyo qofka markaas waxaa weeye sida ay u bedeli karto u saameyn karto u kobcin karto koritaankiisa ay uga qayb qaadan karto qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa exosystem waxaa laga wadaa qofka waxyaalaha ka fogfog balse isaga saameyn kara isaga bedeli kara isaga kobiciisa ka qayb qaadan kara sida waxaa weeye communityga qofka uu ku dhex nool yahay si direct ah ama toos ah qofka uma bedeli karo communityga balse kobiciisa iyo koritaankiisa way ka qayb qaadan karaan tusaale kale waxa uu noqonayaa qofka buugaagta uu akhristo waxaa laga yaabaa buugaagtaas dad uu ku dayanayo markaas isaga role model u ah in uu ka dhex arko saameyn ayay marka ku sameynayaan qofka way ku bicinayaan wayna korinayaan isbeddel ayayna ku sameynayaan tusaale kale waxa uu noqonayaa qofka dadka uu kala socdo social mediaha ama tviyada qofkaas tusaalaha noqonaya waa qof fog balse waxaa laga yaabaa qofka in uu saameeyo maskaxdiisa in uu bedeli karo in kobiciisa iyo koritaankiisa uu ka qayb qaadan karo qaybta afaraad ama ereyada afaraad waxaa la dhahaa magaceeda macrosystem waa waxyaalaha waaweyn ee qofka ku hareeraysan ee isaga markaas waxaa weeye bedeli kara kor u qaadi kara kobcin kara noloshiisa saameyn kara bay'ad kale weeyaan marka loo baahan yahay dadka waalidiinta ah in ay fahmaan macallimiinta ay fahmaan madaxda ay fahmaan barbaariyaasha ay fahmaan qofka isaga laftarkiisana uu fahmo waxyaalahaas waaweyn waxaa ka mid ah diinta qofka diinta way saamaysaa noloshiisana way bedeshaa waxaa ka mid ah dhaqanka qofka waxa weeye dhaqankiisa wuu saameeyaa kobiciisa ayuu ka qayb qaataa koritaankiisa ayuu ka qayb qaataa waxaa ka mid ah sharciga dalka u yaala ama sharciga markaas waxaa weeye gobolkaas u yaala waxaa loo baahan yahay qofka in uu raaco sharcigaas qofka wuu saameynayaa kobiciisa iyo koritaankiisa iyo adduun araggiisana wuu ka qayb qaadanayaa waxaa ka mid ah qofka mabaadi'da uu ku nool yahay principleska iyo qadiyadaha uu ku nool yahay ee markaas waxaa weeye society ama bulshada isaga ku dhex nool yahay ay aaminsan yihiin mabaadi'daas qofka maskaxdiisa way bedelayaan noloshiisa way saameynayaan
kobiciisa iyo koritaankiisana way ka qayb qaadanayaan. marka waa bay'ad kale oo meesha iyadana ku jirta. qaybta shanaad ama areada shanaad waxaa la yidhaahdaa magaceeda coronal system. coronal system waxaa laga wadaa waxyaalaha adduunka ka dhacaya, waxyaalihii hore u dhacay, waxyaalaha qofka markuu uu nool yahay dhacaya, waxyaalahaasoo dhan qofka waxaa weeye maskax ahaan ayay u bedelayaan, noloshiisu ay saameynayaan, kobiciisa ayay ka qayb qaadanayaan, khibrad ayay qofkii u yeelayaan. marka waxaa laga yaabaa qofka adduun araggiisa in ay bedelaan, adduunkii si kale u arko, in ay saameeyaan waxyaalahaas dhacaya. marka waa bay'ad kale oo iyadan meesha ku jirto, loona baahan yahay in ay waalidka ogaadaan, in ay maamulayaasha ogaadaan, in ay barbaarayaasha iyo macallimiinta ogaadaan. shantaas eriyo ama shantaas qaybood qofka aad ay u saameeyaan, way bedelaan, kobiciisa koritaankiisa ay ka qayb qaataan. waa bay'ad, waa environment qofka uu ku koraayo, noloshiisana ay aad u saameynayso. mar kale waan ku soo celinayaa qaybta koowaad ama areada koowaad waxaa la yidhaahdaa microsystem. qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa ama areada labaad mesosystem. qaybta saddexaad ama areada saddexaad waxaa la yidhaahdaa exosystem. qaybta afaraad ama areada afaraad waxaa la yidhaahdaa macrosystem. qaybta shanaad ama areada shanaad waxaa la yidhaahdaa coronal system. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad fahanteen. muuqaalkan insha allahu tacaala dadka kale la wadaaga, dadka kale gaarsiiya. wixii su'aalaha ama falanqeyna waa xaggeena. khayr badan baa inii rajaynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.